السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن داودياشا qiimaha qadartiga mudane dhamaan asxaabta ku xidhan channelkeena iyo dhamaan ardayda kale ee ku xidhan baa wax ku barata channelkeena Admijid Network. ku soo dhawaada waa casharkeeni barashada maadada biology-ga waa fasalka koowaad ee form-ka waana casharkii labaad insha Allah ta'ala casharkeena labaad waxaan ku qaadan doonaa horeyna inuu soo qaadanay hordhaca biology-ga iyo biology-gu wuxuu yahay qaybaha ama branches-ka ama laamaha uu qaybsamo biology-ga ku soo qaadanay casharkeena ugu horeeyay haddii aad u baahan tahay fadlan waxaad ka heli kartaa qaybta muuqaalada ama videoska gaar ahaan playlist-ga ayaad ka tagi doontaa waxaana ka doonan doontaa category-ga biology waxaana halkaasad ka heli kartaa casharkii koowaad haddaba daawadayaal insha Allah casharkeenan maanta waxaan kusoo qaadan doonaa sida ciwaanka bay nooga muuqata characteristics of living things oo ah astaamaha nooleyaasha ay kaga duwan yihiin nooleyaasha nooleyaasha iyo nooleyaashu astaamo ama waxa weeye sifooyin lagu kala garan karo ay leeyihiin haddaba nooleyaashu waxay leeyihiin astaamo ay kaga duwan yihiin nooleyaasha haddaba waxa lagu yiri all living things dhammaan nooleyaashu waxay leeyihiin 8 characteristic features eegada si fiican halka ugu dhawaaq characteristic 8 characteristic features waa 8 astaamood ama waxa way 8 muuqaal oo ay kaga duwan yihiin features waa muuqaalada ama waxa way astaanta oo kaga duwan yahay shaygu ayaa loo yaqaan marka imka astaan bay halkan u taagantay or amaba life process yani waa hab nololeed yani hab nololeedkooda ama qaabkay u nool yihiin waxay leeyihiin nooleyaashu yani 8 astaamood ay kaga duwan yihiin nooleyaasha and there waxayna kala yihiin kow movement dhaqaaq shay kasta oo nool wuxuu sameeyaa maxay movement dhaqaaq u sameeyaa qodobka labaadna waxa weeye waa feeding waa quudashadii ama waxa weeye nutrition waxa loo yaqaan sidoo kale growth koritaan shay kasta waa maxay yani wuxuu sameeyaa koritaan feeding marka aadaan ku yar noqdo feeding waa quudashadii inuu shaygu waxa weeye noolihii uu wax quuto oo wuxuu quuto helo oo wuxuu cuno wixii ku noolaan lahaa ayaa looga jeedaa growthna waa koritaankii oo wax weeye waa inuu koro shay kastaaba dee halku maalintii uu dhashay taagnaa maanta ma taagna shay kastaaba halkii waxa weeye taagnaa uu ka koraa oo wax weeye haddii uu noolo yahay waa markaynu ka hadlano noolaha shay kasta markaan ku leeyahay macna waa living thing all living things dhammaan nooleyaashan ka hadlaya respiration waxa weeye sidoo kale waxa weeye respiration inuu sameeyo oo waxa weeye tamar dhalin ama tamartii inuu waxa weeye la yimaado ama tamar sameeyo sidoo kale excretion qashin saar waa inuu qashin saar sameeyo oo waxa weeye noole kastaaba markuu waxa weeye wax cuno ama waxa weeye wax isticmaalo wuxuu soo celiyaa maxay qayb qashin ama waste loo yaqaano marka waa qashin saar dhammaan noola jirka waa in laga saaro waxa la wixii qashin oo dhan iska soo saaro ama saxara ahaan oo soo saaro ama kaadi ahaan waynu arki doonaa sharaxaad exchange gases waxa weeye waa gas isdhaafsiga yani inay gaseska la isdhaafsado nooleyaashu isdhaafsadaan sida tusaale bini'aadamkii oo kale iyo dhirtii oo kale bini'aadamkina uu soo daayo carbon dioxide oo dhirtii maalintii qaadato maalintii marka laga hadlo joogo sidoo kale dhirtiina ay oxygen soo diiso oo bini'aadamka oxygentii qaato habeenkiina sidoo kale waxa weeye dhirtii ay oxygentii qaadato carbon dioxide-na ay soo celiso marka gas exchange gases kuwaas ee looga jeeda marka waa gas isdhaafsi ama gaseska ama neefihii in la isdhaafsado marka sensitivity-gu waxay ka hadlaysaa iyadu waa dareenkii inuu noole kastaaba wax buu dareema haddii marka tusaalehaan halkaa wax lagaga mudo ama dab gacanta lagu saaro dee waa dareemaysa marka shay kastoo nooli waa inuu wax dareemo taas astaantaasa lagu garanaya astaanta ugu dambeysa reproduce waa tarmid macnaha waa inuu tarmo shay kasta oo nool waa maxay uu tarma oo macna wax buu dhalaa aynu ku horeyno hadaba midho ugu horeyno ta ugu horeysa kow movement bay waa dhaqaaq inuu sameeyo animals nooleyaashu ama xayawaanadu